lugaha meela kama adinida soo dhawow dhahashane lafta dhaba ardhaxdiyo dhudhumada lugaha meela kama adinida soo dhawow dhahashane عيد مبارك مركله داودياشيدا qiimaha iyo qadarinta mudanow waa telefishinka caalamiga ee STV oo idin leh meel walba dunida dacaladeeda ka joogtaan ciid wanaagsan ciidada ilaahay nabadgeliyo iyo barwaaqo nagu gaarsiiyo iyo horumar iyo deganaanshiyo barnaamijku aboonay wali su'aalo badan baa haray fanaaniin badan baa meesha fadhiyo oo wali na sugaya aynu barnaamijka ku sii socono yeen jeceshahay u mahadsan tahay dhammaan umada muslimiinta ciid mubaarak ayaan leeyahay mar kale waxaan jeclaan lahaa in aan fanaanad dhinaca gabdhahan u noqonaya maadaama oo labiyo dhidig aan dhinac kasta ka eegayno hadda waxaan u yeedhi lahaa waa fanaanad aad u cod baxsan aadna u qiimo badan ifraax qalbi moraal iyo sacab igula soo dhaweeya ifraax ciid mubaarak habon ida afiya ومناسبة عيدات ومالين دمان مسلمين تواجبات كيسو قتايات فرحسن يهين سيدات واركتها مناسبة دان عيدة والله هبون سؤال فيها waxaan leeyahay anigu munaasabadda way ka duwan tahay idii hore maxaa yeelay dhaqankeeni Soomaaliyeed ayaad ku soo bandhigteen marka waxaan leeyahay waa barnaamij ka fiican barnaamijyada kala dhigana aad baad u mahadsan tahay ifraax waxaanu guda gali doonaa bal kaalmahaagii suugaanta intaanaan gelin su'aal baa ka horeysa gacanta iyo nasiibkaaga haye ifraax farax aad buu kala madhay nasiibkeeda nigana nasiibkeeda walibana xagga kormeyn ka soo qaadanay aad intuu kala madhay iyo nasiibkeega soo qaadatay laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay ifraax ma ku qanacsan haye ifraax su'aasha ku soo baxday waxa weeyi
ifraax waxaan maqalnaa adoo heesaya balse caawa waxaan rabnaa in aad noo soo bandhigto 3 jeer oo qosla si aan u ogaano inay farxadaadu tahay mid u dhalasho iyo mid iska keenkeena inay tahay waay habon moral شعبي مورال افرح صدح قصل او kala duwan baad soo bandhigtay qosolka koobaad maxaan dhigi karnaa waa kii maxay waa kii farxadda ciida farxadda ciida qosolkii ugu dambeeyay baa khatar ah kaas maxaan dhigi karnaa ma u dhalasho waa kaas tan kaas fara nolosha iska keenkeen waa والله يديك يا كان مناسبة العيد maxaa ugu tala gashay daawadayaasha iyo ka qaybgalayaasha barnaamijkeena ciida marka hore waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel kasta joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak marka labaad waxaan salaamayaa gaar ahaan barnaamij daadiyaasha barnaamijka oo ka mid ah Faarax Dufad iyo Haboonagaas ka soo qaybgalayaasha taageerayaasheeda waxaan ugu tala galay barnaamijka hees jacayla ma cusub tahay way cusub tahay ereyadeeda ereyada waxaa sameeyey abwaan la yidhaha Cabdisax Carab oo ku magac dheer qiiro laxanka waxaa iska leh Abgaal Ibraahim Caamir oo salaamayo magaca heesta muusiga waxaa iska leh Cabdiyara Abiib oo raaxeeye oo macalinkayga khaaska aniguna waan ku luuqeynaya magaca heestana maxaa la yidhaha magaca heesta waxaa la yidhaha xorbay xor caashiq xor weeyaan caashiq xor weeyaan waa tahay heestaasi iyo ifraax iyo barnaamijkeena ciida